صحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام ولا لهيجا قيمها يقدر أنت بظن مال كستو أدونك دعالة ساعات كجنوشين وانيجو أولاشين أدقونه إذن له السلام عليكم مرلا وادي مرسد حادبو شيرت لايك تكومنتك وادن كينا هاي قلب بقيلنا ما أنت موضوع أنا حكوس أفسنيا هاي أن محل ديه جري أن محاك إيمان كرر ريرها مركي كلا تجان يعني قبل يا أما odayga ama xaaskiisa markay kala tagaan oo kale maxaa ka imaanaya the pressure intee la ega ka imaanaya stress intee la ega dadkaas haystaan maxaa dhibaato ah oo soo wajihi kara aan kala qaadno qofna waa qof guriga ku haraaye lagu furay ama ku kala tageen qofna waa qof guriga ka baxaaya aan ku horeyna qofkii guriga ka baxaayay qofka guriga ka baxaayay hadduu ninka ragga noqdo waxa weeyaan asaga waxyaalo badan buu miiskareynayaa teekargareyntii xaasnimadii oo maxay ahayd gurigii ayuu miiskareynayaa sariirtii la seexanayay buu miisgareynayaa oo qof garabkiisa la jiifo buu ahay oo qof maradiisa garabkiisa ay jiifto buu ahay taasuu miisgareynayaa cuntadii loo karinayay iyo naashnaashkii buu miisgareynayaa waxa kaloo miisgareynayaa yacni mas-uuliyaddii uu hayay oo wixii uu mas-uulka ka ahay ayuu miisgareynaya ilmihiisii ama haddii ubad u dhashay inuu ubadkii kasoo tagay buu miisgareynayaa kii ubad dhalay maxay ahayday banaanka markuu imaado ruumeedu dad la noqonayaa asaga waxaa dhici karta sariirtii uu ku saaxani jiray inuuna dib u arkan guriga uu ku noolaani jiray inuuna dib u arkan uu kasoo baxay oo hawo bedelasho ama aag bedelasho kale ee u tahay balse iyadoo hadilna sidaas ay tahay qaabta kale oo hadilna gabadha dhankeeda asaga uga imaanaysa waxaa weeyaan gabadhii ay kala tageen ama ay isfureen oo maxaaskiisa ahayd saaxiibadeed ayuu ka dabalalaasanayaa oo wuxuu leeyahay laqaadaasaa iga furtay qumayadaas ayaa iga furtay ninka naagta taasa maanta dhan gabadhii ay kala tageen saaxiibadeed ayuu ka dabalalaasanayaa ayuu ku dhagayaa sida kooladii oo kale marka waxaa dhici karta inta oo muxuu ahayto stresskaas uu haysto inay ku qaadato muddo bilooyin ah dhowr bilood stragalan inuu ku jiro uu marka dambe ka survive garoobo kartidiisina ragnimadiisu uu uga survive garoobo oo weji kale ama nolol kale uu beegsado oo ayuu uga bixi karaa uu ku iloobi karaa aan u soo noqono dib gabadhii xaaska ahayd oo guriga lagu furay maxay ahayd qabado ah oo ayadii laftirkeedii soo food saaraya number 1 waxaa soo food saaraya dariskaaga markuu kaa guuro baa dareemaysaa oo dhankeeda dabeelkaaga imaadaa waxaa dareemaysaa in dariskaagii uu kaa guuray oo uu kaa maqan yahay maadaama aad dareemaysid dariskaaga inuu kaa maqan yahay dabeelkaaga imaanaysa dadkii cusbaayo gurigaa soo degay waxay kugu noqonayaan dadaadan is aqoonin sidoo kale gabadha waxaa imaanayso inay sariirta dhankeedii dabeel kaga imaado waxaa imaanaysa inay guriga dhexdiisii oo markuu shaqada ka imaado ama ay isdaba maraayeen jikada ama cunto isiidii ama cuntadii ay karinaysay wixii inay odageedii ku xisaa ay miisgareynayso yacni waxyaalihii ay u qaban jirtay inay miisgareynayso ay ka maqan yihiin baa meesha ku jirto oo ka maqneen waxa kaloo ka maqan ilmihii hadday ubad u dhashay for example ilmihii oo dhahaya aaba aawi waqtigu shaqada ka imaani jiray ama waqtigu guriga joogi jiray xasuusanaya dhahaya aawi yacni odagii aawi ama aaba aawi whatever dhahaya ayaa dhacayso taasay la dhiilgaraynaysaa waxaa kaloo la dhiilgaraynaysaa financialkii bay la dhiilgaraynaysaa hadday renti ahayd hadday cunto ahayd hadday wax walba ahayd inside and outside ayay la dhiilgaraynaysaa way la dhiilgaraynaysaa way iska harjadaysaa laakiin finally way ka dabaalanaysaa wayna ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa naag karti leh oo dhiig leh oo maasha allaahi dabaqa ayna ka boodi karin ka boodaysa maanta waayo waxay helaysaa inay brave lady tahay kalsooni isku qaadaysaa meel kasta oo ninka ragga uu geeni jiray in ayada kaligeed tagi kartay dareemaysaa waxaa dhici karta waaga hore uu la joogo inaynan wax saas aynan samayn jirno meel walba ay isdhihi jirta odaygaaga ama ku geynaya ama asaga waxaan sameynaya ay isdhihi jirtaa dabcan dhici karta laakiin markaan nin tuurle waxaa la yiri siduu u seexda asagaa yaqaana cid ay u jiifatay cid ay fiirsato midna horteeda ma yeelaan marka waxay noqonaysaa
inay muxuu ahayto nin tuur leh siduu u seexda asagaa garanaya ee ku socoto qarjajeexaasna waxay ka qaadaysaa kalsooni iyo karti dheeraad ah iyo caqabadaha oga imaanaysa faamilada is haystoo kale يعني هالنكيدي فرت هذا الذي يعني ضعيف كأهو إسكدول دولا يصير دقسقي وكلوري يعني مر بدك هذا كل عاية إن الدق ودق إن الله ده يكذب على الله إله you know ويحكوا كده عوال قاتاي go ahead يعني ولقى هإسكدي قف ضعيف إنها تاع مقف دمر إنها تاع make sure إنها إسكدي تنين كان رقم ماشو جاري كري إنها تجارتي كرسوني كرتي ديرادي كقاعدة waxaa dhici karta gabadhaas inayna u xisaabtaminba dumarka la qabo camal siday u xisaabtamaan ee u xisaabtanto inay ninkaas inaagba ayada isu tahay ee ku xisaabtanto ayaa dhacaysa marka hadalladan daciifka ahoo ama dariska kaga imaanaya ama dadka kale kaga imaanaya ama whatever taas gabadhaas yaa qabo waa garoob cid qabta ma lahan waa sidaas xayaa ma laha hadalladaas yaroo daciifka oo xitaa gabadhaas dhegteeda kusoo dhacayo qaar baa xitaa markay gabadhii ninka ay kala tagaan marka iyada camal ay kala tagaan oo kala tagoodii uu cusub yahoo kale waa markay ugu xun tahay maxay ahayda lagu dambaabayay laleeyahay intaasoo dhibaatay samaysay intaasoo dhibay samaysay ama ceebaha bilo-aadanka ee bannaanka iskiga soo baxaan waxaasoo dhan bay handal garaynaysaa waxaasoo dhan ay la survive garoobaysaa wallaahi muxuu ahayto stresska gabadha ama koraayo ama dhibaatada koraysa ma malayn kartid bas the end of the day waa ka dabaalanaysaa waxayna dareemaysaa inay tahay ninka ragga inuuna waxba u ogeen inaysan waxba u ogeen karti haddii la dhaha maskax haddii la dhaha aqli haddii la dhaha waxay ka dheefaysaabaan more responsibility inay ayada qaadi karta more karti inay yeelatay oo muxuu ahayto ninka derbiga ka boodis derbigu jibiyana inay jibinaysa ee maxaa la dhihi jira ee dareemaysaa ee bref tahay marka dhibaato kasta oo qofka bilo-aadanka kusoo dhacdo waxay leedahay started bay leedahay maalin ee qofka ku dhacdo waxay leedahay the end maalin ee dhamaata ayay leedahay farxad ugu dambeysa waayo waxaa la yiri qofkii ummadda in ilaahayga uu subxaanahu watacaala uu uumay oo ifka uu keenay rafaad iyo dhibaato kalamuuna balamin maanta qofka dhibaato iyo rafaad ku nool biritoole raaxa iyo qabow iyo nacaaw iyo naxariisa uga dambeynayso ilaahay weyna subxaanahu watacaalana wuxuu yiri ninka samraa sidkiisa helo waa la samrayaa hore unbay u soconaysaa hooyaday ama nin ama soo kala tagaan waxaan aaminsanahay cajalada aan maanta duubay ama aan maanta duubay inay tahay ay faa'iido leedahay miro dhalna ay leedahay dad badan oo hore u soo arkina ay dhageysanayeen ay dareemayaan inay yacni reality tahay wax dhici karana ay tahay ay ogsoon yihiin inta ay ku dhici doontana muxuu ahayto markay daawadaan biri hadday dhibka uu ku dhaco kale ilaahay nooguma keena ay dareemi karaan yacni waxaan wax hore usoo jiray inay tahay ama wax dhici karaba inay tahay marka maanta wuxuu ku egyahay mawduuc annaga oo muxuu ahayto stresska depressionka waa isku mid dhankii loo qaadaba inuu maanta baarta 2 halkaas ayay noogu eg tahay baarta 3 ayaan soo qaadi doonaa hadduu ilaahay idmo baarta 3 waxay ku actually ay qusaysaa family ma qusaysaa single ma qusaysaa qof kastoo bilo-aadan ah oo naf ilaahay uu geliyey oo nolol iyo ayatiin sugaya ayay qusaysaa qaybta maxaa la dhihi jiray financialka ah marka financial institutionkana marka qaybta 3aad baan kaga hadli doonaa sheekadan depressionka waxa weeyaan taxana weeyaan anyway hadda 2 qaybood aan kaga soo hadlay insha Allah qaybta 3aadna waan u gudbi doonaa bal maskaxdeeda ama fikradeyda oo kale hadii qaybo kale oo 4aad ama 5aad ay soo baxaan I would let me know. I would let me know, inshallah, because I believe maxaa la dhihi jiray depressionka intaasoo kelima ahan meelo badan uu ka imaanayaa workplace uu kaaga imaanayaa friendship uu kaaga imaanaya gabadha saaxiibadaayoo kale ama qof aa saaxiibad tihiin oo isku dheertihiin ama wiilka saaxiibkiisa oo kale ayada laftirkeeda waa depressionka soo karaaya marka insha allah bilillaahi kariim cajalada
labaad intaasay noogu egtahay qaybtanadii labaad ee taxanaha ahayd hadduu ilaaha idmo qaybtayada saddexaad baan u gudbi doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo walaalahayga qaaliga ah meel kastoo adduunka dacaladiisa aad kaga nooshihiin I love you baa idin leeyahay sheerta iyo liketa iyo commentiga waa dhankiina intaan isku soo noqon doono ama hawada aan ku wada kulmi doono waxaa idin leeyahay I love you so much salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu